dirisla hooyada ku dhashay waa aniga hooyadii waa hooyo Soomaali. horta intaan fiidiyoga si dhex galin markuu ugu horeysay inanku wuxuu ka hadlay fiidiyo aqbalaada macnaha wuxuu yiri waxbaan aqbalayaa waxaas mar dambe ma soo duubayo waxaas waxa iska deynayaa okay horta waxaan ku tusayaa fiidiyoga aqbalaada markuu ugu horeysay sida loo duubo sababtoo ah si qaldan baa soo duubtay fiidiyogaas waxa la kala garan waayay inaad aqbalaad duubiso lahayd waxa mar dambe ma soo sameeynayo inaad ficiltimiso soo jawaabaysay marka markuu ugu horeysay horta waxaan ku tusaynaa sida loo duubo fiidiyoga aqbalaada macnaha markaad wax aqbalayso leedahay waxbaan aqbalayaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا عمر كريشة أصحابي ماشي يقول جتوا السلام يا كي قرني كي أنا قرنين با كي أنا قرني وحنا لي صوتها مع المهندس درس أي حد مركز البلد بايقول صوت بيرك وأنا قرنين برشوا على عمر كريش بالي ده وحنا دوني أرين يروح أنا درس أنا قد حاليا حام سوق قبل وحنا نقول لها صاحب درس صورت هذا نين رجع ثاني ونين رجع أنا هاي waxway dhacaan dib ma laha animika laga bilaabo fiidiyo diriso ma soo duubayo sababtoo ah dirisli waa walaalkay oo kale aniguna walaalkii oo kale ahay way dhacdaa inay dadku qaldamaan laakiin qaladkooda laga soo noqdaa marka ama isagoo ha qaldanaado ama aanu han qaldanaado waxaan leeyahay aniga dirisle hadal dambo naga dhex dhici doona ma jiro sababtaan saa u leeyahayna waxa ahayd wax qalbigay ka miday iyo waxay dad ii sheegeenba macnaha dad baa igula soo taliyay inay yidhaahdo saas ma fiicnaysa iska deyno anigana qalbigayga ka timiday oo waxaas dhahayd inaad qof isku dhex qabsatiin social media ma fiicno had israali gelisiin aniga horta dirso waxaan ka sheeganay ma jiro haddaan ka qaldanayna waan ka qaldanaa haddii isagu iga qaldan yahay inuu iga qaldan yahay anu muxuu iga qaldan yahay ma odhanayo sababtoo ma rabo inaan wax fafoqo isagana sidoo kale waxaan rajeynayaa inuu wax fafoqin marka fiidiyogan uma soo duubin jawaabaan dirso u jawaabayo fiidiyoga waxaan usoo duubay inaan macnaha raaligelin ka bixiyo waxaan sameynoo dhan inaan YouTube ka deyno sababtoo waxaan nahay rag waaweyn oo la taawado oo macnaha jiilka imika jiray iyo kuwa soo bixi doonaba waxaan u nahay tusaale marka ma rabo inaan wax bilaabo marka dirso waxaan ku leeyahay haddaan kaa qaldamay garan Allahow haddaad iga qaldantayna anu waan ku cafiyay anu xaq uma soo fadhiisanaya dirisa qaldana ama hebel baa qaldana maana saxsan ama iska saxsan laakiin waxa rabay kaliyaata in aan anu qof nuqdad qabin diris waa Soomaali aniguna Soomaali baan ahay wax dhibaato naga dhaxaysan ma jirto waa sida loo soo duubay fiidiyo aqbalaada macnaha waxba la aqbashay laakiin adu fiidiyo soo duubtay muuna ahayn fiidiyo aqbalaad wuxuu ahaa fiidiyo 4 daqiiqo ugu horeysa ah tirisada animkaan yiri laakiin si lixda ugu dambeysay laga fahmay inaad wali ficiltamis oo jawaab bixinaysid marka laga yaabaa in waxa imkaan ku sheegay mar dambe ku anfici doonaan talabaad aan waxaan u mahadcelinayaa oo mar koowaad iyo mar labaad waa mahadsantiin ku leeyahay shacabka aniga ay taageera maanta un bay tustaan inay taageertiin aad iyo aad baa mahadsantiin wallahi idinkuna waxaad dhulku musbaari karaysin waad ku musbaarteen wala arkaa macnaha inaad wax dhulka la gasheen aad iyo aad baa u mahadsantiin aad iyo aad okay afkaaga waxa ka soo baxay hadal ahaa diris wuxuu ka xanaaqay fiidiyo aan soo duubay oona isaga ku socon baba okay sax fiidiyo aan garanay laakiin labadeena dhibaato naga dhaxaysa dhibaatada naga dhaxaysa shacabka ina daawanaya ma garanayaan aniguna halkeen aan horkeena ma rabo sababtoo sharaftaan wali ilaalinaya adoo haddaadan aqoonsada dadka sharaftooda loo ilaaliyo anigu wali sharaftaada ma ilaalinaya waxaan ku leeyahay sax aan dhabarkan aad iga tooganaysid iga daa war ninkan wuxuu igu sameeyay hadda ogtiin YouTube channelkayga wuxuu ku sameeyay hadda ogtiin maadan tiraadeen ba Umar Krish baan taageernaayo taageeraan u nahay wallahi uqdada ku jirta anu sax barto uqdada ku jirta meesha kaaga jirta ma garanayo anigu dirsaa waxba kaama sameyn wax aan ka sameeyay ma jirto waxaan ka hadlay inaad garanaysaa adiga iyo kuwa kula shaqeeyo way garanayaan waxaan ka hadlay anigu waxaan ku leeyahay saaxiib YouTube kayga mails ka dhig ani hadda rabtid Salisbury baan toos kugu imanaya waa hadda aniga rabtid Salisbury ma degani soo isku wadan ma degani aniga hadda rabtid diris la'aan ana Salisbury kugu imanaya laakiin waa YouTube kayga mails ka dhigday laba noo ragaan nahay hadda leedahay aniga saaxiib diris dhibaato adigu haysaa inta iitmaad waxay ku tiraa diris dhibaatada adigu haysaa abtiga la xad saaxiib dadku waxba ma oga ma garanaysaa laakiin inagu waan sognahay aniga labadeenu nimka fiidiyo soo duduubin ka hor baa dhibaataygu haysay dhibaatadana waad garanaysaa macnaha inaad dadka soo hordhiga imika ma rabo laakiin mar bay soo bixi doontaa haddii aniga YouTube kayga iska deyn weeyay xalay ma ay habeen hore ayaa doonaysaa in YouTube kayga jabsatiin adoo taxma jabsan karaysid laakiin dad baa kula shaqeeya waa fiicantii ma rag baa tiin badad YouTube qof uu leeyahay aad jabsan karaysid aanu ragnimadaas aan waqana laakiin saaxiib YouTube kayga iska jabsabo aniga dhabarkayga toogan waxaan diidanahay dadka soo fariisatid oo iska dhigto qof maskiina laakiin si anigana aad xagga dambe ka toogatid aniga haddaad i reebtid YouTube kayga tagina aniga soo abaar taan ku waliba celinaya anu wali wax ma soo bandhigin laakiin si haddaad ku sii wadiin sidan uu YouTube kayga imika yahay anu waan dareemayaa sababtoo YouTube kayga anas kale maalin walba la socda daqiiqada YouTube kayga la socda haddaan arko YouTube kayga wax hoos uga dhacaya Umar Krish saaxiib qalad ka abaale imika in dad yaabaan laga yaabo ay sidaan diris muxuu ka hadlayaa dadku ma fahmayaan arrintan ilaa aan soo bandhiga mooyaane laakiin aad waad fahmaysaa waxaan ka hadlayo dhan aad waad fahmaysaa
arrin kaloo tirna waxay ahayd labadeedii inaan dagaaltano waxaa keenay maxay iyo maxay labadeenu ma dagaaltamayno arrintu weli dagaal mina gaadhin aniguna adigu kulama dagaaltamayba wax dagaalna meesha ma yaalo ee wuxuun baa isku sheegaya anigu waxaan sheegayna waa wax runa adigu waxaa sheegaysiina waa la wada arkaa bade dagaal inuu yimaado laga yaabaa marka dambe laakiin iminka meeshan dagaal ma yaalo wuxuun baa isku sheegaya kaloo tirna waxay ahayd xalay uu dirista YouTube-ki soo dhigay soo ku faanay Umar Kish baan ka subscribe badanahay maxay baan ka subscribe badanahay taasna saaxiib aduun baa keenay waxaana tiri waa arkiyo waa wada akhriyo dadka waxaa tiri iyaalkani soo aan baxaya tii un baan anigu ku fasiriyo dadka soo hordhigay macnaha wixiina waa la arkay bade waxaan leeyahay waxaan afka kaliya kaliya maaha ee waa wax jira marka taas ku sii kadkadeedin ba okay waxaa tiri dad badan baa YouTube-ka igala soo xiriiray waxaana igu dhaheen waxaan ma fiicnay iska daa macnaha inaad YouTube-ka soo xaqabstiin ma fiicnay iska daaya ma xumo waa dad fiican dadka saa kuuri laakiin bal gabadhan ma wax ka haynaa marka gabadhan man message ka akhrinaa macnaha waxay tiri gabadhani tirisla Cabdiwaan ku salaamay walaal adiga iyo Umar Krish kala roonaada meeshan in aad isku haysataan wax fiican maahan dad walaal ah ayaa tihiin buuqiina wallahi billahi tallaahi wuu idibaya waxaan rabaa ininku in isku faraxsan in aad wada kaftantaan walaalkii qalad hay fahmin gabadhu si fiican bay u hadashay laakiin qoraalka hordhan waxaan ka soo dhex qaadanaa inta ugu muhiimsan waxaan ka soo dhex qaadanaa dad walaalo ah ayaa tihiin beenta ma ah aniga Soomaalidoo dhan waa walaalahay laakiin ka waran walaalka intuu midi soo qaato haduu dhabar ka geliyo bal arintaa ka waran hadda walaalka maadan ay maan aflagaadin video leey maadan soo qaadan wuxuu leey maadan ka taaban hadda haduu intuu midi iska soo qaato xagga dambe ka geli ka waran waliba intuu hadana real life kula soo xiriiro ku yiraahdo okay hor baa gaadhay saaxiib dirisle hore u soo on ku faraxsanahay waxa sameynayso dhan halka daban uu midi ka geliyo hadda ninkan wuxuu ku leeyahay hore u soo xaggan uu ka dilaya marka aanu gabadha su'aashan weydiinay waxay tahay ama dadkay daawanay oo dhan ninkaasi ma walaalkayba mise waa in ay cuqdad ku jirto cuqdada ku jirta macluumaad sheegtaa Soomaaliya qofka waa inaad tiraado waxaasan ku haystaa waxaana waxay dhaceen ka hor inta aanu fiidiyaasha soo duubinba dad badan inay yaabaan oo isleedaan ba laga yaabaa kale Umar Krish muxuu ku sameeyay talow okay meesha wuxuu u sameeyay soo bandhigay mar rabo laakiin goorma soo bandhigaya waxa in la soo bandhiga laga yaabaa laakiin goorma soo bandhigaya waa marka uu waxan uu igu waday gadin waayo marka ma soo bandhigaya anigu laakiin haduu daayo ma ceebeynay sababtoo oo walaalkay oo kale wali waan ka fiicnaanaya anigu wali wiilkii fiicnaan ahaanaya anigu tukal u dhahayna waxa ahayd wiil yar imka soo koriya tayna aniga iga caansanaa soo marabta anaa ku deynayba may saaxib meesha bilal la isma siinayo ani waxba haydeynin ani wax la iidaay mar rabo ee wax adoon bay hayd waa ina tayba wax la isku deynay ma waa wax ay tayba way tahay macnaha kadaranta waxaa tiri waa wiil Soomaaliya ninka nin Portugiis ma aha horta fiican tahay dad Soomaalida Portugiis kala qaaday qof norta lama xumeeyo qofku doona ba ahaado laakiin se kaba soo qaado okay bal Soomaalinimada han qaadano nin Soomaaliya oo walaalkaaga aad maxaad la xumeynaysaa way adiga leeyahay nin Soomaaliya too walaalkaybe waxaa tiri kale video soo duubay shucuub ka muuqatay wuu xanaaqsanaa ha saaxiib waan xanaaqsanaa waliba aad iyo aad wallahi xanaaqay ugu dambeeyay waa sababtoo ah hooyadii meeshan dhax keentay anu hooyadii adduunkan ugu jecelahay hooyadii adduunkan ugu jecelahay meelahan oo kale in hooyadii dhax keenna ma jeceli taas waa taas oo sababtaas ahayd aniga sababtu wajigaygu saa ugu eeka adi hooyada hadii laga hadlaa hadii shucuubtaas ku qabanayno damqanin macnaha anigu waan damqaday macnaha waan damqaday inaad fahamsan malayn waxaan ka wado ani horta YouTube-ka iga saari kartaa sida ani YouTube-ka iga saartino wax adag ma aha laakiinse aniga sida dadka qalbigooda iga saartid ba adag sababtoo ani dad badan oo taageera jira oo runtan ka hadlay igu taageero wax kale igu taageerin qabiil ma ahada runta kaliyaata kadaranta ninkan qalbigu inuu ciribta kaga jiran mareynaya macnaha lagu haynu kaga jiro sababtoo waa ninka iska soo ay dhigay yiri total views-ka intuu soo qaatay total views-kiisa ana ka views badan war waxan waa total views macnaheedu ma garanaysaa waxa weyn fiidiyaasha soo sameeyso dhan gibigooda marka la isku wada daro yaanu fiidiyaasha soo sameeyo marka gibigooda la isku wada daro okay meel fiican ku dhuumata soo raasatay laakiin meesha waan ka soo saaray hadaba aan kaaga soo saaray inaad dhuumata isku dayso maaha inaad meel gashaas ku dayo laakiin kaaga soo saaray adigu 2014 ka soo gashay Soomaaliya fiidiyogii marka soo gashay soo dhigtay ilaa maanta fiidiyogaagii ugu dambeeyay marka la isku wada daray 9 milyan fiidiyaasha oo dhan hada la eegana waa 210 mal la mise 220 xaman mise la odhan baday in dadka la soo hordhiga fiican wax walba Soomaaliya waa 286 fiidiyo marka 286 fiidiyo views-ka ugu dhan la isku wada daro ayaa adu 9 milyan gaaraysa aniguna marka 60 fiidiyo views-ka ugu dhan la isku wada daro ayaa 2 milyan gaaraya mana xisaabtina taqaan ma leena xisaabin karti wax imika ma difaantay markaas hadhuuman lama dhuunto beenta naga daa ani beentana qalbiga xanuujinaysa beentana sheegis baan ka sii xanaaqaya baanu bal ilaahay baa idinku dhaarshay ninkan beenbenidiisa macnaha anagoo nool burba inuu been noo sheego on qaadano bil fiidiyo kan taawada tan kale waxaa tiri ninka hooyadii buu gaaray no hooyada waa hooyadii fiidiyogan wuxuu yiri anu dirso hooyadii ma cayn sama hadana fiidiyo kan taawada hooyada wali ma weydiisay aabaha
ka hor intuusa guursan meeqa nin ay soo martay haddaba marka dabcan adi hooyadaa waa soo weydiin jirta marka walaal qaali ma jiran tahay mise adigu maanta waxaad tiraadid berwad iluudayo qalbi cama ku hayso farxal bad cabtay bal aniga arintaas iga soo faalo markaas aan fiidiyoga nimka wax la soo duubay kaliya inaad wax fahantiin macnaha wax walba in la isfahansiyaa fiican ma garanaysaa